Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Soo dhawaada dhammaantiin meel walba aad joogtiin. Isku soo noqosho wanaagsan oo ku faraxsanahay mar kale inaan bartaan waxaa waaye information kale ku soo gudbiyo, maadaama ay dhacday in bishii labadii bilood u dambeysay aanan halkan waxba ku soo gudbinin sababo la xiriira maxaa la yiraahdaa anoo mashquul ah waqtigii saamix waaye. So marka wixii maxaa la yiraahdaa aan awoodi waayo dee waa meesheeda, laakiin wixii aan la awoodana waa meeshooda. Hayna waa markii waqti aan idin helo waa idin soo gudbiyaa sida hore in kaga barateen oo casharaan badan oo firiya aan kugu soo gudbiyey. Marka si ay isku keento baashi marka qaar waxaa dhacaysa inaadan adigu waqti hayninin, yacni dadkiina ay marka qaar ku sugaa. Marka aad ba waxaan kaga raali gelinayaa intaas labadii bilood aan ka maqnaa oo aan waxba halkan ku soo gudbinin. Laakiinse insha Allah waxaan rajeynayaa hadda wixii ka dambeeya inaan noqon doono wax walba dhan oo waxaa la dhihi jiray ay sabab horta mar walba u maleynaa inaan si joogto halkan wax ugu soo diri doono barteenaan YouTube naan soo gelin doono, Telegram ugu soo diri doono. Laakiinse sidii hore si u dhow ma noqon doonto insha Allah. Waxaa waaye update baa jiri doona. Marka midida kale sababahaas ay horta sababaha ugu badan oo maqnaa anoo koorsooyin kale ii socdeen oo qaadanayay. Marka inkastoo weli hadda dhamaanin laakiinse handale waxaa la yiraahdaa sidii hore waa maxaa la yiraahdaa waa ka mashquul yarahay. Sidoo kale waxaa jirta asxaabta qaar si gaar aan u yara caawinayay u tababarayay trading forex-ka. So marka inaad dadkaasna wado dad cusubna aan qabto barnaamijku waa isku haykiin weyday dadkiina qaarkiin luuqa ay la soo hadasheen oo information kan waxa waaye waa ka dabageeyay waa u sheegay sababtaas ay jirto macquul ma noqon kartaan iri. Marka sidaas ay ahayd mid ugu badan, laakiin insha Allah bishaan hadda 8aad ay dhalanaysa 20keeda waxaan u maleyn doonaa inay dhalinyartaana kooraska aan hadda wada ayagana ay u dhamaan doonto oo dhan ay noqon doonto dhankooda. Maxaa la markaas si guud oo koorso guud waa insha Allah waa laga yaabaa inaan bilaabo, laakiin hadda waxaa la yiraahdaa aad ay igu adagtahay weli sababtoo ah mas'uuliyad markaad inaad qaadid waa inaad ogtahay inaad sidii la rabay ugu soo bixi kartid. Haddii aad sidii la rabay ugu soo bixi karin way kugu adkaanaysaa. Marka maxaan ka cararayo ugu badan taas ay ahayd. Marka taasna insha Allah hadda bisha 8aad 20keeda meelahaas waxaa la yiraahdaa inaan waxaan dhan aan ka soo jeesto koorsooyinkan dhalinyarta wadana aan dhameeyo mid qaas oo anigu ii socotayna inay insha Allah ii dhamaato ayaan rajeynayaa. Marka dhalinyaro sidaas ogaada raalina ahaada la dulqaato. Midida kale waxyaabaha aan maxaa la yiraahdaa hadda aan sameyn doono ayaa waxaa ka mid ah maalinka axad oo kale inaad kadib heli doonto hal video oo ku saabsan waxaa la yiraahdaa falanqaynta suuqa si guud bilow ilaa dhamaad. Sidoo kale maxaa la yiraahdaa newska iyo maxaa la yiraahdaa fundamentalka dhinaca falanqaynta markii maxaa la yiraahdaa ka sameeyay fundamental in ayadana ka fahansantahay aad bay ku saaciday doonto waxyaabaha khalaadka iyo dhibaatada ka ilaalin doono. So marka ayadana waxaan sameyn doonaa fundamental iyo technical oo wada socda oo falanqayn buuxda ah ayaan soo gelin doonaa 10 daqiiqo ilaa 12 daqiiqo meelahaas camal noqoto mise 8 daqiiqo insha Allah. Intaan soo koobi karno waan soo koobaynaa muuqaal badan oo dadku caajisin oo handale maalinka axad qof walba uu ka faa'iideysto hadduu Ilaahay uu idmo ayaan sameyn doonaa. Haba ahaatee ama habeenka axad oo kale isniinta soo gelayso kale ayaan soo gelin doonaa, mise waxaan soo gelin doonaa maalinka sabtida habeenkeeda axad si aan maalinka axad oo dhan dadka qaar baa waqtiga hore subaxii oo kale jaanis ka haysta oo iska baashaalaya. Marka si uu qof walba barqooyinka oo kale iskaga samaysto qaarkood galabkii oo kale u samaystaan. Laakiin xoogaa habeenka haddii la soo geliyo aan isdhaano xoogaa waxay ila yara ekaanaysaa subaxii isniinta morning oo kale qofku inuu samaysto. Mararka qaar habeenka inuu waqti u waayo kale laga yaabaa adoo magaalkaada meelahaas kale dantaada kale iska wato kale inuu video soo gaaro kale markaad mararka qaar waqti aad u helin oo kale. Marka taasna insha Allah waxaa waaye ama hadda mise sabtida kii aad jeceshiin barta commentiga inoogu soo reeba. Marka insha Allah sidaas ayaan sameyn doonaa. Wax walba information mise update oo hadda kadib oo jirana waxaa la yiraahdaa asagana hadduu mid oo video loo hadlayo uu yahay barteena YouTube ayaan soo gelinaynaa. Hadduu mid oo qoraal ku koobi karo uu yahay oo macquulana waxaan soo gelin doonaa barteena Telegram insha Allah. Waxaa idin rajeynayaa dhammaantiin caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash intii maxaa la yiraahdaa
sheeg information iyo warbixin dambe aan ku kulmi doonana sidaas ayaan amaana online kaga tagaya. Hadda this week already waa bilowday maanta isniina, suuq waa inoo furan yahay. Hadda waxaan samayn doonaa maxaa la dhahaa set up ayaan waxaan kugu soo diri doonaa barteena Telegram hadduu ilaahay idmo. Marka wixii axaddan soo socda ka bilowdana wuxuu noqon doonaa video dhammaystiran oo ku saabsan waxaa la yiraahdo falanqayntaas buuxda. Marka insha Allah sidaas ogaada, sidaas la socda. waxaa la yiraahdaa ninka xaguu ka baxay iyo xaguu ka dhacay iyo ayaan badan ii soo qoraysan bartayda Telegram. Marka insha Allah ku wada mahadsantiin dhamaantiin. caafimaad iyo barwaaqo bashbash ayaan idin rajeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.